وقرر marka labaad waxaan mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha saacadaha badan dhowrka saac ay siiyey inay waqtigooda qaaliga ah inoo huraan oo ay halkan inoo fadhiyaan iyagoo waan mahad celinaya marka saddexaad waxaan mahad celinayaa guddidii qabanqaabada ee ururka badbaado iyo wadani aan u xil saarnay inay xafladan diyaariyaan dhinaca haweenka dhalinyarada iyagoo waan mahad celinaya marka saddexaad afraad waxaan mahad celinayaa sheekhu wuxuu maanta ku deeqay qaadhanka ku deeqay sheekhu ayaan aad mahad celinayaa ugu deeqay abaaraha ka taagan maanta geeskan africa ama ka taagan gobollada awdalha ugu badnaato usalan oo dhibaato badan laga soo sheegay waftigii xalay yimiday ka yimiday saylac waanu fiidkii aanu kula kulannay rays ayaa sheegay in xitaa xooluhu gaajata ciidda xoreeyeen والله ودي بتوين وأنا بقول تيرانيودو لكن واحد نورنا إنه حياة أمري من إلهي من برينا إلهي من ويتيسنا إنه إلهي أبارته إنه صوته إلهي من برينا حتى حياة برينا واحد نواينا نستعار إلهي من نواينا ونكترنا بدنا وين إنه إلهي برينا شو يسوق ما تاني نبغى كارو سكر كار في سطوح المال نوري دوت كاسي وحاول نبعث بدل وجدها يا نبغى حفلة sida fiican loo agaasimay kundigeygu wuxuu ahaa sidaad ogtihiinba waxay iga dawaajiyeen madaxdii labada urure hore hadlay waxay ahayd isku-biirka badbaado iyo wadani ee gobolka waddanka xafladan ahayd gobollada dalkao dhan way ka dhacaysaa in badanna gobollada way ka soo dhacday ilaa degmooyinka ilaa tuulooyinka way soconaysaa waxaanu doonaynaa inaynu midayno guri iyo shaksi labadii urur aan ugu midayno waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaynu badbaado iyo wadani marka ay midoobaan inuu ka soo bixi doono wax wanaagsan oo tayada waxay madaxdii iga horreysay oo dhan waxay ka dhawaajisay golaha deegaanka golaha deegaanka anagu haddaan nahay wadani markii hore ee aan badbaado nagu soo bixin ee hore intu wadahadalkuba noo furmin ayaan anu go-aankaygii u horreeyey ee asaasayaasha waxuu ka mid ahaa inaan golaha deegaanka ee somalilan magax ka bixiyo sidaad ogtihiin dhibaatooyinka ugu weyn maanta waxay haystaan waxa weeye dhinaca golaha deegaanka waxaanu soo xulaynaa oonu diyaaru nahay keenaynaa dad idinkayna qaneeyo shicibka reeraha somalilan oo dhan ama reeraha walba waxaanu ka codsanaynaa markaanu dadka soo bandhigno dadku waanu diyaarinay waxna way noo dhibayeen majoritigoogana waanu haynaa diyaar weeye gacanteeda ku jiraan waa diyaar intaan fadhida in badan oo ku jirtaa waqtiga way fadhidaa laakiin dib baanu dhiganaynaa sheegideeda iyo tusaalaynteeda laakiin waxaanu soo bandhigi doonaa oonu calosheeda ku haysanaa oo gacanteeda ku haysanaa dad qancin kara reerahooda markaanu soo joojino weliga haddii la idhaahdo bilowgiisa horeeya haddayna qanci waayaan innagu waxaynu nagu dardaaraynaa haddii aad tihiin reerahooda aqooyahan iyo culmiya salaatiinba iyo cid walba inaad soo celisaan markaad dadka aragtaan ee aanu halkaas soo joojino ee shaksi walba aanu halkaas soo joojino inaad nagu soo celisaan wixii qaldan ee noo sheegtaan annaga ururka wadani oo weliba maanta badbaado nala doobay waxaanu ku dhisannahay tala wadaag waxaanu ku dhisannahay mashhuuro inaanu mar walba wixii dhibaca ee qalad ee aanu galno lanoo sheegoonu qaadana marka idinka mar kaste codsigaygu wuxuu ka imanayaa taladaydu waxay ka imisaa shicibka gudihiisa annagu kuma dhaqaaqayno xisbiguna maaha xisbi cid u xidhan waa xisbi ballaaran waa xisbi somalilan oo dhan u furan waa xisbi qaadi kara cid kasta oo dareynaysa inay wanaag dalka usoo jeedo keliya waxaad inta badan saxaabada ka maqasha oo yar badan xisbigan wadani dowladda wadata annaga dowladnama wadato dowladdu waa kulmiye anaga waa qayb laakiin waxaa keliya lagu haysta waxa weeye waa yooyootankii xisbiyadii hore dadka bareen ayaa ilayinka dhigayna ku jira maaha xisbinimada iyo macarinimada maaha dowladda jirta oo lacaaya maaha waxa weeye toosin anu haddana wadani oo badbaadana oo nala mido oo wadani maanta wadanahay waxaanu diyaar u nahay inaanu wixii qaada ee jira toosino laakiin diyaar uma nihin xukuumadda maanta jirta ilaa waqtigeedu dhammaanayo inaanu cayno oo aanu yooyootan iyo waxyaabihii dalka ka dhici jiray oo ku dhaqano xasha waynaga daano taasi distoorkiga kuma qorno xeer xisbana ku jabadaynaga tahay haddii intaa arrintaa kaga baxo
waqtigu uu kooban yahay hal kelmad ayaan kulley ka faa'iidaysanaya Charleston oo ah siyaasadda arrimaha dibadda walaal isaga ogtiinba Somaliland iyo Soomaaliya caalamku waxay soo jeedeen wada hadlaan taa wadana waddan soo dhaweynaa aad iyo barada soo dhaweynaa laakiin waxaan moodaa in waxoogaa maanta guddoolay jiro taasna la dowladdu waa inay inga dhalinyarato waxaan aad u soo dhaweynaa in Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan laakiin waxyaabaha kale ee maanta ka socda caalamku meesha Soomaaliya way yeedhaan baa inagu aynu ka qayb galayno horta haddana waddan diyaar weynaya anigu waxaan diyaar u nahay Soomaaliya iyo Somaliland inay wada hadasho wax kastoo wada hadalkaa ka soo baxana ka waraan ugu qanacsanay laakiin in shir kasta oo Soomaaliya loo qabanayo Somaliland ku meelato way cidi ka tagto waxay aad u habaabinaysaa oo ay luminaysaa qorshihii ay jeexeen caalamku ay nagu soo jeediyeen in aynu Soomaaliya iyo Somaliland wada hadasho oo ay noo garnaqaan caalamku soo fadhiistaan taasay luminaysaa marka maaha meel kaste oo Soomaaliya oo dowladda maanta jirta ee Soomaaliya meel kasta oo looga yeero in Somaliland ku malato ka qayb gasho inaga waxba inoo soo sito kaliya inaga waxay noo soo sida wax weey si ay caalamku inoo jeexinahay Somaliland iyo Soomaaliya iyo kooxo siman inay wada hadlaan taas ay waxay noo saraysaa marka dowladdu waxay talo ku soo jeedinaa ku talbixina aan ku hadlayaa fuqaro siyaasadda wadani waa in shirarka dibadda ee ay dowladdu wasiirada u digayso mar walba la tagay waa in laga yeeshaa talo qaran waa in laga yeeshaa waa in la iskaga yimaadaa waa in iyadoo la isku ogol yahay tagaa Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadalkeega talo qaran baa iyadoo laga yeeshay baarlamaanka baasmadiyay shicibka ra'yi laga qaaday taa waa isku wada laakiin tan imika ee socota ee wasiiradu ay tagayaan shirarka ninka maanta ka socda waxbay nagu soo sito loolkii hore ee socday ayayna dhalaalaabin doontaa taana dowladdu waxaan leenahay waa tala bixin maaha waa ku tala bixinayna in dowladdu feero galataa way yeelato intaasa kulli kusoo kordhaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha mar labaad waqti badan baad na siiseen in badan baad noo fadhideen aad iyo baan iga mahadcelinayaa waxaa kaloo aad u mahadcelinayaa waftiga hogaamiye guddoomiyaha oo siyaasiyiin badbaado oo nooga soo gacantimay Hargeysa iyo waftigii muxuu ahaay wadani Hargeysa ka soo kaxaysay waqtiga badan soo socday iyagoo